tan iyo markii shalay gelinkii dambe uu Axmed Qorqor gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxa soconayay shirar iyo kulamo looga arinsanayo soo laba kacleynta Ahlusunna. wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in shirkii ugu weynaa uguna waqtiga dheeraa uu dhaxmaray madaxweyne Qorqor, siyaasiyiinta, odayaasha, ganacsatada beesha degta laga soo bilaabo Matabaan ilaa caasimadda Galmudug. xubnaha shirka fadhiya waxa ugu miisaan culusaa Senator Cabdixakiin Macalin Axmed iyo xildhibaan Mahad Maxamed Salaad. shirka oo ajandihiisu waxa laga yeelayo ciidamada Ahlusunna ee qabsada Gurceel waxa uu soo gaaray ilaa iyo saaka salaadii subax, waxaana la sheegay in dhinacyadu go'aan midaysan ay qaateen. ila ka tirsan xubnihii shirka ka qayb galay ayaa inoo sheegay in go'aan lagu gaaray in xal aan dagaal ahayn aan Ahlusunna wax looga qaban karin. shirka waxa lagu go'aamiyay in dagaal ay ka qayb qaadanayaan qaybaha kala duwan ee ciidamada kuwa Galmudug iyo kuwa dawladda dhexe lagu wajaho degmada Gurceel oo il dhaqaale oo aan laga maarmi karin. sida macluumaadyadu muujinayaan waxa diyaar garow la geliyay ciidamada Galmudug ku sugan iyada oo amniga caasimadda loo xil saaray ciidamada Djibouti iyo kuwa Itoobiya, Danab iyo booliska Galmudug. ciidamada AMISOM ayaa ballan qaaday in wax kasta oo dhaca aysan ciidamada Ahlusunna u soo dhawaan karin caasimadda, iyaguna ay yihiin kuwa qaadaya tallaabada xiga haddii ciidamada Ahlusunna ay soo damaaciyaan qabsashada caasimadda Galmudug. wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in ciidamo gaaraya 100 askari ay haatan ka degeen magaalada Dhuusamareeb, shalana la geeyay ilaa iyo 50 askari. abaabul ciidankii ugu weynaa ayaa ka socda caasimadda Galmudug, waxaana qorshuhu yahay in caawa ilaa iyo berri la weeraro magaalada Gurceel. ciidamada qaybta 12aad iyo kuwa Gorgor oo kala shaandhayn lagu sameeyay ayaa diyaar u in ay dagaal ku qaadaan magaalada Gurceel. howlgalka waxaa hogaamin doona sida uu qorshuhu yahay General Mas'uud oo deegaanka ka soo jeeda, iyadoo Farxaan Qaroole oo madaxweynaha Galmudug ay isku hayb yihiin uu gacan weyn siin doono. Farxaan Qaroole oo taliyaha qaybta booliska gobolka Banaadir ayaa Galmudug u raacay Axmed Qorqor, waxaana dad badan is weydiinayaan halka uu ku og yahay mas'uuliyaddii dawladda u igmatay ee sugidda amniga caasimadda ummadda Soomaaliyeed. dhanka Ahlusunna, Gurceel oo xudunta Ahlusunna ayaa la rumaysan yahay inay diyaar ku yihiin wax ka badan 400 askari, kuwaas oo diyaar u difaacidda wadaadada. dadka magaaladu waxay sheegayaan in ciidamada Ahlusunna oo aad u fara badan watana gaadiidka dagaalka ay magaalada ku sugan yihiin, kuwaas oo qabtay dhufaysyo ay kaga hortagayaan ama ay isaga difaacayaan duulaanka ciidamada ku soo socda. saraakiil amni ayaa sheegaya in Ahlusunna aysan haysan hub ku filan iyo dhaqaale toona, taas oo mid ku riixaysa in Qorqor uu hujuum degdeg ku wajaho. hase ahaatee ciidamada Ahlusunna ee ku sugan Gurceel iyo Matabaan ayaa bilaabay qaadida canshuurta gaadiidka xamuulka halkaas oo ay dhaqaale fiican ka samayn karaan haddii ay maalmo kale oo dheeraad ay sii joogaan. si kastaba indheergaradka Soomaaliyeed, siyaasiyiinta iyo dhinacyada kala duwan ee bulshada ayaa ku baaqaya in colaad aan marnaba lagu dhaqaaqin, taa beddelkeedana la aado farsamooyinka la xiriira nabadda iyo heshiiska.